wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo Soomaaliya caalamka qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa kamid ah suurtagal ma tahay in Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday xabsigiina uu sugidda Muqdisho iyo sida uu ku baxsaday oo xogo dheeraad ah laga helayo warar kala duwan oo ka soo baxaya arrinta Cabdirashiid Janan iyo warar tilmaamaya inuu gaaray magaalada Kismaayo xilwaan fiqi oo saddex su'aal ka keenay baxsashada wasiir Janan dhuusamareeb Ahlusunna oo soo dhistay xildhibaano kale oo galmudug ay yeelanayso duqii hore ee Muqdisho si adag u dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya xogta keedkii ugu muhiimsanaa ee bangiga dhexe ee Soomaaliya oo gubtay oo la qariyay waxaa kaloo daawan doontaan arday laga helay astaamaha cudurka corona oo lagu xiray garoonka diyaaradaha Kenya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan aynu ku bilaabnay taliska booliska Soomaaliyeed ayaa maanta talaada waxay ku dhawaaqeen inuu xabsiga ka baxsaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan ayaa saaka ka baxsaday halkii uu ku xirnaa sidaas waxaa Twitterka ku soo qortay Zakiyo Xuseen Taliye xigeenka labaad ee booliska waxay raacisay hay'adaha ammaanka ayaa ku raad joogay inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanahaas oo loo haysto dambiyo kala duwan shacabkana ay soo wargeliyaan haddii ay arkaan Cabdirashiid Janan ayaa la qabtay bishii Agoosto 31 sanadkii aynu soo dhaafnay waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in loo haysto dambiyo iyo dad uu dilay ninkan dhinaca kale soo qabashadiisa waxaa soo dhaweysay hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International oo ku baaqday in maxkamad la soo taago ilowreedii waxaa laga soo xigtay in halkuu ka baxsada la geeyay 5 maalmood ka hor Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan warbixinadu waxay intaas ku darayaan in goobta uu ka fakaday ku dhaweyd xaruntan oo sugidda Soomaaliya oo loo yaqaan Hawar Khadiijo Kaabin ee ku hayso madaxtooyada Soomaaliya wuxuu adeegsaday meel daaqada markii uu baxsanayay ayay yiraahdeen ilowreedii waramay warbaahinta oo soo bandhigay sawirro lagu tilmaamay yihiin meesha uu ka baxsaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan arintaas ayaa waxay abuurtay baqdin weyn oo ah in Cabdirashiid Janan uu talaabooyin kala abuuro Cabdirashiid Janan wuxuu ku jiray gacanta hay'adda nabadgelyada Soomaaliya waxaana la leeyahay waxa gacanta ku haya saraakiil ka tirsan nisaab ila ku dhow hay'adda nabadgelyada waxay u sheegeen warbaahinta in warka taliye xigeenka booliska Soomaaliya General Sakiye ku baahisay Twitterka u muuqdo war si ku talagal loo baahiyay waxay muujiyeen in aysan suuragal ahayn in xabsiga Hawar Khadiijo meel ugu dhow laga baxsado oo waxa suuragal ah in loo fudeeyay baxsashada Cabdirashiid Janan sida muuqata waxaan la ogeyn halka ay ku dhamaan doonto kiiska Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxaana saraakiil badan oo warbaahintu u hadlay tilmaamayaan in Cabdirashiid Janan dowladda federaalka ay baxsad siisay daraadeedna uu ku baxsaday waxaana la ogaaday in goobta uu ka baxsaday ay tahay goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo warar ay sheegay warbaahinta waxay sheegayaan in goobtaas maalmo ka hor la keenay ku hayeen saraakiil ku beel ah Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxaana la ogeyn xarigiisa sida ay noqon doonto iyo sidoo kale goobta lagu soo qaban doono balse waxaa shaki weyn la geliyay in ay tahay goob aad ammaankeeda u adag goobta uu ka baxsaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan warar kale waxay tilmaamayaan in Cabdirashiid Janan uu hadda ka degay magaalada Kismaayo sawirro la soo muujiyay wasiiro garoonka ku soo dhaweynaya balse lama xaqiijin karo inuu yahay warkaas mid sax ah waxaa la tilmaamayaa in garoonka Kismaayo saacado kooban uu xirnaa oo aan la ogeyn sababta loo xiray garoonka taasna dad badan waxay u fasirteen inay tahay soo dhaweyn loo sameeyo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan sida muuqata dowladda federaalka ayaa sii deysay tanina waxay qayb ka tahay heshiiska dowladda Axmed Madoobe Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu qancinayaa inuu la shaqeeyo dowladda federaalka si taas loogu fuliyo Axmed waxaa loo sii daayay mid kamid ah maxaabiistii ama saaxiibadii uu aad ku jeclaa oo maxbuus dowladda u ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu arkay Cabdirashiid Janan mid kamid ah saaxiibada u dhow ee uu ku maareen karo siyaasadda Jubbaland gaar ahaan mid gado balse sida muuqata hadii uu Janan joogi lahaa Axmed Madoobe nabad ayuu kaga seexan lahaa gado oo hadda siyaasadiisa laga diiday sida muuqatana Axmed kagama kalsoona Jubbaland gaar ahaan deegaanada gado Sayid Aadan iyo Janan waxa uu aad u jecel yahay Janan oo ah nin aad u adag go'aan badan leh marka la fiiriyo saraakiisha Jubbaland ka talisay waxaan la ogeyn goorta uu Axmed Madoobe dowladda la heshiin doono balse sida muuqata goobta la soo bandhigay uu ka baxsaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waa goob aad ammaankeeda loo ilaaliyo sidoo kalena daaqada uu ka baxsaday inay suurtagal ahayn in qof saa'id loo ilaalinayo uu daaqadaas ka baxsado xitaa sida muuqata qolku ku xirnaa ma aysan qol maxbuus loogu talagalay waa guri caadi ah oo loogu talagalay inuu ka baxsado Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii amniga Jubbaland ee dowladda u xirnaa Janan ayaa maxkamadaha dowladda ka soo muuqday mal kaliya waxaana markaas la sheegay in dacwad oogistiisa mar kale ay bilaaban doonto marka kale ayaan la ogeyn xilliga ay noqon doonto iyadoo ninkiiba hadda uu baxsaday dowladda federaalka ayaa hadda eedeyn badan ee u imaanaysa oo ku aadan inay sii deysay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan baraha bulshada ayaan aad loogu falceliyay waxaana la tilmaamay inay tahay warar laga been abuuranayo sii deynta Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan sanatare xildhibaan ayaa ka falceliyay arrintan waxaana loo arkaa heshiis hor leh oo dhaxmari kara Axmed Maxamed Islaam
axmed madoobe iyo madaxweyne farmaajo. axmed madoobe hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi halka farmaajona asmaro uu ku sugan yahay, sidaa daraaddeed waxaan la ogeyn waxyaabaha keenay in tani ay kusoo aado tallaabta iyo cidda loo xiri doono ayaan la ogeyn. sida muuqatana waaba heshiis ay gaareen dowladda federaalka iyo sidoo kale axmed madoobe. haddaba xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn ugu soo horjeeda siyaasadda dowladda federaalka ayaa 3 su'aal ka keenay baxsashada wasiirkii amniga jubbaland janan. waxa uu sheegay in dowladda markii horeba ay soo afduubatay wasiir janan aysan ogeyn halka lagu xiray. nin lasoo afduubtay markii hore guri aan la aqoon ku xirnaa, xaaladda uu ku sugnaa aan xitaa reerkiisa aysan ka warhayn, inta maanta la yidhaahdo waa fakaday. waxaa ka dhalan kara su'aalo badan. kow, intaana loo soo sheegin fakashadiisa ummadda ha loo sheega xabsigii uu ku xirnaa uu sidaas u fudud uu kaga baxsaday. laba, yaa mas-uul ahaa wasiirka oo lasoo afduubay oo loo xil saaray ilaaladiisa. ma dhici kartaa in warkan baxsashada lagu marmarsiyoonayo in la qaarijiyo saacadaha soo socda zakiye mar kale ay soo sheegi doonto isagoo sii baxsanaya ee askarta ceersanaysay xabado ku rideen ayay u dhintay tire. wasiir janan ayaa isagoo nool waxaa afduubatay dowladda, waxaana isagoo nool laga rabaa dowladda federaalka. waxaa intaas ka soo haray waa riwaayadii raqiiska ahayd ee kooxda fila soomaaliya, ayuu yidhi axmed macalin fiqi. agaag daawadayaal ahlusunna waxay soo dhistay xildhibaano kale oo galmudug ay yeelanayso. culimaadudiinka ahlusunna ayaa waxay soo dhiseen xildhibaano kalena oo ay yeelanayso baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug, arrintaas oo shaki been laga muujiyey, sidoo kalena howlihii galmudug caqabad weyn ku noqon karta. maanta oo talaadaha magaalada dhuusamareeb waxaa lagaga dhawaaqay liiska xildhibaano gaaraya 69 xubnood, kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin xildhibaanada labaad ee baarlamaanka galmudug. maxamed yaxya faarax oo ah gudoomiyaha ahlusunna u saartay xulidda xildhibaanada iyo xalinta khilaafaadka ayaa sheegay in xildhibaanada 69 lagu daray 20kii hore ay yihiin 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug. baarlamaanka cusub oo ay diyaariyeen ahlusunna ayaa lagu wadaa inay doortaan gudoomiye ku-xigeenadiisa, kuwaas oo iyana diyaarinaya doorashada madaxweynaha. xildhibaanada ayaa sidoo kale gudoomiye kumeel gaara u doortay cabdulqaadir sheekh cali kulmiye xoogsade oo horey ugu mid ahaa xildhibaanadii galmudug ee waqtigoodu u dhammaaday. gudoomiyaha kumeel gaarka ee xildhibaanadaas ayaa ugu mahadceliyey xilkay u doorteen, waxaana uu sheegay inuu sii wadayo howlaha doorashada maamulkaas. xildhibaanadan ayaa waxay kusoo aadayaan iyadoo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo ahlusunna, waxaana muuqata in laba doorasho ay ka dhacayso magaalada dhuusamareeb. dhinaca dowladda federaalka ee baarlamaanka galmudug ay taageersan tahay dowladda ayaa lagu wadaa in khamiista ay doortaan madaxweynaha galmudug, iyadoo isdiiwaan geliyeen ilaa 4 musharax. sidoo kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ku sugan madaxweynaha maamulka galmudug ee waqtigiisu sii dhammaaday axmed ducaale geele xaaf oo halkaas ka wada doorasho hogaanka ugu sareeya maamulka galmudug ah. musharaxiinta galmudug ee ku sugan dhuusamareeb ayaa dhankooda sheegay inaysan qayb ka yeelan doonin doorashada magaalada dhuusamareeb ee ku qabanayso xukuumadda soomaaliya oo codsatay in xal laga gaaro khilaafka doorasho ee ka taagan dhuusamareeb. xubnaha musharaxiintan waxay tilmaameen inay doonayaan in xal laga gaaro khilaafaadkaas. duqii hore ee muqdishona wuxuu si adag u dhaliilay dowladda federaalka. duqii hore ee magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ku dhaliilay dowladda federaalka inay ugu sii dartay muqdisho. sheekh yuusuf xuseen jimcaale waxa uu sheegay in xaaladda hadda ka taagan muqdisho inay tahay mid cakiran maadaama magaalada dhagaxaan lagu wada jaray. waxa uu sheegay in meelaha qaar ay dhagaxaan inay dhaaftay arrinta jangeelo lagu xiray, waxaana uu ku tilmaamay arrintaas mid caqabad ku ah bulshada. gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale waxa uu sheegay gaadiidka xamuulka ee kasoo baxa degada muqdisho 3 maalin inay ku qaadato inay gaaraan suuqa bakaara iyo suuq bacaad. magaaladan dhagax in lagu xiro waa ay dhaaftay oo waxay maraysaa in jangeelo lagu xiro baabuurka degada kasoo baxa oo badeecadaha bakaaraha ama suuq bacaad uu sida 3 maalin ayay ku qaadanaysaa, walba canshuur xad dhaaf ah waa in laga qaadaa, ayuu yidhi madaalo oo la hadlayay warbaahinta. muqdisho waxaa ka jira xaalad cariiri oo gaadiidka ay ku adag tahay in si nafis ah ay magaalada ku dhex maraan, iyadoo wadooyinka magaalada ay yihiin kuwa kala xaniban. iyadoo intaas aynu weli xulashada daawanaysaana xogo cusub waxay kasoo baxayaan keedadkii ugu muhiimsanaa ee bangiga dhexe ee Soomaaliya oo gubtay. warbaahinta ayaa xog dheeri ah ka heshay dab xalay ka kacay bangiga dhexe, waxaana wararku ay sheegayaan inay gubteen 2 ka mid ah keedadkii ugu muhiimsanaa ee bangiga dhexe. 2 ka mid ah xafiisyada bangiga dhexe ayaa bas beelay, waxaana qayb ay ka yihiin keedadkii ugu muhiimsanaa ee dowladda, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan bangiga dhexe Soomaaliya. xogta heshay warbaahinta waxay sheegaysaa in goobaha gubtay ay kala yihiin xafiis ay ku kaydsanaayeen kombiyuutar iyo qalab muhiim ah kuwaas oo la bangiga dhexe ee Soomaaliya, waxaana wararku ay sheegayaan in halkaas sidoo kale ay yihiin dokumentiyo muhiim ah. waxaa sidoo kale bas beelay qaybta kaydka diiwaangelinta shaqaalaha dowladda. xogta waxay sheegaysaa in halkaas ay yihiin diiwaangelintii ugu dambeysay ee ciidamada biometriga iyo diiwaangelintii ugu dambeysay ee dhammaan shaqaalaha dowladda. diiwaangelintaas oo ay qayb ka qaadatay hay'adda IMF iyo kuwa kale. si kastaba xogtan ayaa sidoo kale goobo kala taal, taasoo khasaare ka dhigaysa mid aad u culus. dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir ayaa qariyay baahinta arrintan, waxaana xogta aynu ku helnay xubno ka tirsan bangiga dhexe ee kooxda dowladamiska gobolka. ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga
ee keentay in dabkan uu kaco bangiga dhexe hase yeeshee waxaa maalmihii lasoo dhaafay muqdisho uu dab kacay ugu yaraan 5 jeer kuwaas oo guryo dad ay leeyihiin waxaana loo badinayaa korontada inay dhalisay ugu dambeyntiina arday u dhashay dalka China ayaa lagu qabtay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi kadib markii laga helay astaamaha cudurka corona oo dad uu badan ku dilay dalka China iyadoo la geeyay qaybta karantiilka ee isbitaalka dowladda wasaaradda caafimaadka Kenya waxay sheegtay in baaritaan ay ku hayso arday badan oo loogu shakisan yahay inay qabaan xanuunka dilaaga ardaygan oo aan la magacaabin ayaa ku safrayay fiisaha Kenya waxaana laga helay astaamaha cudurka corona kadibna waxaa la dhigay isbitaalka dowladda Kenya bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa lagu xaqiijiyay in rakaabku ka soo raacay haatan ay gacanta ku hayso wasaaradda caafimaadka dalkaas ardaygan ayaa wasaaradda caafimaadka dalkaas sheegtay inuu asal ahaan ka soo jeedo magaalada Wuhan oo halka markii hore uu ka dilaacay caabuqan ay haatan go'doonsan waxaa la xiray dhammaan wadooyinka soo gala magaaladaas dhammaan caasimadaha waaweyn ee dunida ayaa sare loogu qaaday baaritaanada lagu sameynayo rakaabka si loogu hortago in cudurkan uu ku faafo dunida